dhinaca kale madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed markii uu soo dhameystay booqashadii uu ku tagay degmada Afgooye ayaa waxa isaga iyo wafdigii la socday madaxweynaha jidka u galay kooxda al-shabaab sida wararku ay sheegayaan hal askari ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacantay waa tan warbixin ku saabsan arrintaasi kadib markii booqashadiisa uu soo dhameystay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho intii ay soo socdeen ayaa waxa dhaxda ay kala kulmeen weerar lama filaana kaasoo ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay iska caabiyeen sida wararku ay sheegayaan weerarkaas ayaa waxa ku dhintay hal qof kadib markii booqashadiisa uu soo dhameystay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho intii ay soo socdeen ayaa waxa dhaxda ay kala kulmeen weerar lama filaana kaasoo ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay iska caabiyeen sida wararku ay sheegayaan weerarkaas ayaa waxa ku dhintay hal qof isla markaana 7 kalena ay ku dhaawacmeen